Asalaamu calaykum. Sheekadayna waxay ku bilaabanaysaa weligaa dhabarka u jeedinay dadka aadan aqoonin. Waxaa sidaa maalin igu dhihi jirtay ayeeyadeyda. Ayeeyadeyda markii jirtay da'da 43 sano waxay dhagi goostay dadka cuna. Waxay iga sheekayn jirtay qisada gagac badan ee ku dhacday waqtigaas ilaa aan kasoo gaarayay da'da 20-miyada. Waxayna igu dhihi jirtay ninkaasi wuxuu iga goostay dhagihii, qaniinyadiisuna waxay ahayd saaid u xanuun badan. Markii hore waxaan malaynayay inuu qaniinay. Waan qayliyay, xijo ayuu igu qabtay wuxuuna i dhahay aamus, haddii kale bunta ayaan kaala baxayaa. Kadib wuxuu sameeyay cod sida in uu ilkihiisa isku xaqo. Dhawaaqaasi wuxuu ahaa mid saaid u cabsi badan. Ilaa hadda waan ka baqaa markii aan maqlo qof cunto calaanjinayo. Ilaa markaas laga bilaabo waxay ahaa qof dhagihii ka maqan yihiin. Waxay ahayd 20 sano ka hor, waxaana xaafadayna ka jirtay amni darro saaid u ballaaran. Kaliya ma aynan ahayn ayeeyadeyda qofka qisadaas camal ku dhacday. Waxaa jiray naago kale oo xaafadda deganaa kuwaasoo dhagihii laga goostay. Booliiskana way awoodi waayeen inay dambiilahaas soo qabtaan. Waxaana ayeeyadey u sheegi jiray in ay isdejiso aysan walwalin, waqtigani inuu sidii hore aysan ahayn oo amnigu sugan yahay. Waxaana dhihi jiray wax camal ma dhacayaan, laakiin waxay ku dhihi jirtay inaan dhagaheeda usho mar walba aan banaanka u socdo. Waxaana ku dhihi jiray maalin in ninka sidaa kuu galay aan kaaga soo aaro ana dhagihiisa ku keeno. Waqtigaas kadib habeen anigoo banaanka socdo ayaa waxaa waddada ku arkay nin banaanka jiifo oo waddada fadhiya. Waana ka naxay, waxaana isku dayay in aan caawiyo oo xoogaa lacag siiyo. Wuuna ii mahad celiyay, wuxuuna cunayay shay la yaab badan. Markaas ayaan weydiiyay wuxuu cunayo, wuxuuna igu jawaabay asigoo dhoola caddeynaya, kani waa dhag doofaar. Waan la yaabay, waxaana dhahay maxaad u cunaysaa dhagaha xayawaanka? Wuu dhoola caddeeyay wuxuuna igu jawaabay run ahaantii waxaan saaid ugu baahanahay inaan cuno dhagaha bini'aadamka sidoo kale, laakiin ma haysti. Marka waxaan iska cunayaa kan. Markaan arko dhagaha dadka waxaa iga soo daata dareer, waxaana igu kacay bahalnimada. Markaan ma rabo inaan adiga dhagaha kaa goosto ee iga tag. Wuxuuna bilaabay inuu cuno dhagaha xayawaankaasi sida qof baahi daran ay haysay. Wadnihii ayaan istaagay. Waxaana weydiiyay inuu horey u cunay dhagaha dadka. Wuxuuna dhahay maya, laakiin qof ayaa horey igu sheegay inay saaid u macaan yihiin. Kadib wuxuu cod sare ku dhahay waxaan cunay dhagahayga, asigoo dhahayo saaid ayay u macaan yihiin. Dib waxaa fiiray wejigiisii, waxaan arkay inuusan dhaga lahayn. Waana shoogay, waxaana i gashay cabsi saaid u daran. Waxaan isku dayay inaan meesha ka cararo, laakiin wuxuu i qabtay labadii lugood muuna igalaanayn inaan meesha ka tago. Wuxuuna i dhahay sidoo kale waxaan rabaa inaan dhagahaaga cuno hoo lacagtaada qaado, lacagtaada ma baahniye, laakiin waxaan rabaa inaan adiga cuno. Wuuna dhoola caddeeyay wuxuuna i tusay ilkihiisa. Waxay dhahayeen kuwo saaid u af badan. Gadaal ayaan iskaga riixay, waxaana kasoo baxsaday meeshii. Waxaan imaaday guriga, waxaana ayeeyadeyda weydiiyay inay xasuusto ninkii dambiilaha ahaa. Waxayna igu tiri haa. Waxaan soo qaatay buug yar si aan dambiilaha wejigiisa u sawiro. Waxayna ii sheegtay tilmaamihii oo ninka lahaa. Markii aan sawirka dhameeyayna shoog ayaa igu dhacay, sababtoo ah ninka buug sawiran wuxuu saaid u ekay ninkii aan waddada jiifay oo hore u soo arkay. Wuxuu hal ilka ahaa ilbuun san ballaaran iyo ilka saaid u af badan. Wuxuuna lahaa qosol cajiib badan, qosol cabsi badan. Markaa waxaa isku dayay inaan qosolkiisa iska dhigdhigo. Ayeeyadey dhahday haa, kaasi waa qosolkiisa. Tani micnaheedu waxay tahay ma ninkii aan waddada kusoo arkay waa ayaa qofkii sidaan ayeeyadeyda ku riday dhag la'aanta. Inkastoo ay ahayd xilli dambe, waxaan soo aaday meeshii aan hore u arkay ninkii oo waddada jiifay. Waxaan weydiiyay inuu yahay qofka ayeeyadey dhageheeda cunay. Wuxuuna dhahay ma haysaa sawir ayeeyadaada leedahay? Waan aqaanaa markii aan sawirkeeda arko. Waxaan ka qabtay kuleetigii. Ma xasuustaa naagtii adaa u hanjabtay inaad dhulka ka baxsanaysid aadna cunaysid waqti dheer ka hor? Waan xasuustaa, laakiin tiro dumar badan ayaa sidaa ugu hanjabay. Tiradan waxay gaarayaan in ka badan 10 qof. Waxay qabtay carrada adduunka. Waxaana rabay inaan sida camal dhagihii ka gooyo, laakiin labada dhagood midna ma aysan ku yaalin. Wuxuuna u muuqday mid fahmay waxa aan ku fikirayo, wuxuuna bilaabay qosol. Aniga waxaan cunay dhagahaygii naftooda. Waxayna ahaayeen kuwo saaid u macaan badan. Maanan dareemin wax xanuun badan. Wuxuu ilaahay dadka u siiyay kaliya 2 dhagood, waxaana kuwo badan. Kadib si lama filaan ah wuxuu soo orday dhankayga si uu u cuno dhagahayga. Waxaana ku dhuftay fiir saaid u xoog badan. Qayliyay, wuxuuna u dhacay dhinac. Saaid ayaan u sii garaacay ilaa uu ka soo xayay. Sawir ayaan kasoo qaaday wejigiisii. Waxaana soo aaday gurigayga si aan u tuso ayeeyadeyda ninka sawirkaan kasoo qaaday. Waxay u muuqatay qof shoog ku dhacay. Waxaana weydiiyay inuu yahay asiga. Waxayna daboolatay labadeeda dhagood, waxayna ruuxday madaxeeda. Ninkii dib dambe laguma arkin waddadaasi. Ayeeyadeydana waxay joojisay inay ugu soo hadal qaado wax ku saabsan ninkaasi. Sheekadii cabsida badan halkaas ay ku dhamaatay. Muuqaalka dakeeshanay waxaa kaa codsanayaa biliis inaad like saarto muuqaalka si dad badan u gaaro. Jalgada ku xiran subscribe saar. Muuqaalkan geeskan kaga soo baxaya daawo. Muuqaalka hadda gasho oo ka heli doontaa.